mulkiilaha Facebook ayaa sheegay inuu ka xun yahay inuu Facebook hoos u dhaco dadkii daalacan jiray ama ku xidhnaa waxaana warbixinta tan soo dhameystiran ay u dhigan tahay sidana daawasho wanaagsan daawadayaal. haddii aad tahay qof badan ay isticmaala shabakada Facebook waa hubaal inaad aragtay isbedel ka muuqda bogga hore ee wararka lagu soo bandhigo oo muuqaaladii fiidiyowga ahaa iyo kuwii wararkuba ku yaraadeen. arrintaasi waa mid ay shirkadu ugu tala gashay oo waa mid ay shabakadu ku doonayso inay ku nadiifiso bogga hore. ujeedaduna waxa weeye in halkii wararku buuxin lahaayeen loo baneeyo inay qaado xogo ku habboon xubnaha qoysaska iyo asxaabta ku xidhiidha bartaas. waa tallaabo si dhaqsa ay u dhaqangelinayso shirkadda Facebook oo dadka shabakadeeda adeegsadaa bishiiba kor u dhaafeen 2 bilyan oo qof oo wadar ahaan wakhtiga ay isticmaalaan shabakadeeduna hoos ugu dhacay 50 milyan oo saacadood maalintiiba. Maraykanka iyo Canada ayaa tirada dadka maalintii isticmaala shabakadu markii ugu horeysay ay hoos ugu dhacday 184 milyan halka ay sanadkii hore maalintiiba isticmaali jireen dad tiradooda lagu qiyaasay 185 milyan oo qof. inkastoo ay faa'iidada shirkadu heshaa 60% kor u kacday ayaa haddana maalgashadayaashu aanay weli kalsooni badan ku qabin sida ay wax u socdaan oo waxa qiimaha saamiyada shirkadu hoos u dhacay 5% markii ay shirkadu go'aankan shaacisay. nagash waa umaasan yahay warbixintan Axmed Nagash ayaa ka diyaariyay Facebook iyo hoos u dhaca ku yimi. daawadayaal halkaad nagala socotaana waa Deegaan Channel TV ku xidhno hadii jiraale wararkayaga iyo warbixinooyinkayaga si maalinle ah iyo si aad goob kasta iyo warbixin kasta adduunka markay ka dhacayso